kulanti wanaagsan markale kuna soo dhawaada barnaamijkeennii muhawalada dhallaanka waa ka dhegaysataan dhallaan koriye sheekada maqlaysaan toddobaadkanna waa sheeko kale oo cusub waxayna ku saabsan tahay qoys loodhan jiray reer Faarax oo ku noolaa meel baadiye ah oo wadan fog ka tirsan waxa la yidhi carruuray beri hore ayaa waxaa jiri jiray qoys loodhan jiray reer Faarax wuxuu ka koobnaa aabe laba carruur oo dhalay iyo bisad waxayna ku noolaayeen wadan fog oo dhul baadiye ah ku yaala hanti waxay lahaayeen guryo iyo dameer iyo hal bisad waqti dambe ayaa aabihii dhintay ka hor intuusan dhimanna wuxuu ku sii dardaarmay in hantidiisa sidan loo dhaxli doono gurigii iyo dameerkii ayuu dhaxal u siiyey wiilkiisii weynaa wiilkiisa yar oo Cali loodhan jirayna wuxuu dhaxalhaan ugaga tegay hal bisad oo kaliya Cali ayaa aad uga xumaaday sida aabihii ugu qaybiyay dhaxalkoodii waxa uu yidhi waa bisad maxay taraysaa xataa ma cuni karo muxuu aabahayo sidaa u yeelay oo noogu kala eexday aad ayuu uga xumaaday laakiin mar kaliya ayay bisadii booday u istaagtay waxay tidhi imaqal bisad kaliya ma ihi waxaan ahay wax weyn ku tari karta sidaad moodaysana ma ihi ee hayga dayrin inta uu yaabay ayuu ku yidhi sidee u hadli kartaa waa bisad hadlaysaa maxaad ii qaban kartaa waxay tidhi waa caadi waan hadli karaa haddaan ku tusayaa waxaan kuu tari karaa noloshaada ee waxaad ii doontaa koofiyad iyo kaba dhaadheer iyo suun aan dhexda ku xidho intaa haddii aad ii keento waxaad ogaan kartaa waxaan ku tari karo iyo in aabbahaa aanu ku dulmayin ee uu dhaxal wanaagsan kaaga tegay waxa uu keenay koofiyad kaba dhaadheer oo foq dheer leh iyo suun ay dhexda ku xidhatay intaa markay heshay way muraayadna isku hubsatay ayay bisadii qabsatay hawsheeda kiisha ayay qaadatay ay ku guratay cunooyin ay ka mid yihiin salaad kaaroote iyo waxyaabo kale oo cagaaran geed ayay la hoos tagtay afka intay u furtay oo ay ballaqday ayay iyaduna gadaasha dambe ee geedka isku qarisay bisadii waxyar kadibna bakaylo urta soo raacay khudradda ayaa soo cararay wuxuu soo boodboodaba kiishkii ayuu isku tuuray oo uu dalaqa yidhi isaga oo sanka la raacaya markii ay bisadu aragtayna intay soo carartay ayay kiiskii afka ka xidhay way geejisay kadibna tuurta ayay ku qaadatay halkii ay inankii yar uga geyn lahaydna waxay u geysay boqor ku yaalay meel u dhow halkay degan yihiin gaadhkii boqorka ilaalinayay ciidamadii ayay u sheegtay in boqorka ay hadiyad weyn u sido ciidankana waxa uu la yaabay bisadan hadlaysa oo aysan weligood hore u arkin markaas ayaa waxay go'aan ku gaadheen inay sii daayaan oo ay boqorka u fasaxaan intii soo gashay ayay tidhi boqorkaygii mudane waxaan kuu sidaa hadiyad aan kaaga keenay boqortooyada Caraale ee ku taalla magaalada Hiblaayo boqorkii ayaa aad u yaabay weligii ma maqal boqortooyo la yiraahdo Caraale iyo boqor Caraale la yiraahdo oo isaguna meel degan maalin kale ayay hadana sidii sigle samaysay waxayna gurtay xayawaan kale markastoo ay buuxisana waxay u geysaa boqorkii markay weli tagtana waxay ku tiraahdaa waxaan hadiyad qaali ah kaaga sidaa boqortooyada Caraale iyo boqor Caraale oo ku keenay hadiyadan noocyo kala duwan oo xayawaana ay maalin kasta u keentaa boqorkina aad ayuu ugu farxay maalin dambe ayuu yidhi haddii aan wax ku weydiiyo bisadaydii boqor Caraale ma nin qaniyaba ma boqor hanti badan laba markaasay ku tidhi haha waa boqor hanti badan leh waliba waa wiil dhalinyaro oo kalidii boqortooyo haysta intaa markii uu maqlay ayay boqoradii tidhi waa maxay farxadani malaha waxa weeye kani waa nasiibkeenu hagaagay hadduu boqor Caraale yahay qof sidan u wanaagsan oo dhalinyaro malaha waa boqorkan u guurin lahayn gabadheena aan guurka la raadinaynay boqorka laftigiisuna waxa uu isla malaha halkan ayay fursad ku jirtaa bisadii waxay ku casuuntay boqorka iyo boqorada ku casuuntay boqortooyada Caraale inkastoo boqortooyo wiilka yar ee Caraale la yiraahdo leeyahay aysan bajirin bisadii cararaysa ayaa wiilkii u timi waxay ku tiri soo carar maanta hawl weyn ayaan ku hayaa way soo kaxaysay waxayna keentay webi soconaya wuxuu ku yidhi maxaan halkan ka samaynaynaa maxaan doonaynaa maxay tahay waxaan qabano waxay tiri waa dabaalanaysaa
markaasuu yidhi may aniguma dabaal kan karo u dabaasha ma yaqaano biyahana way liqayaan waxay ku tiri inay ku liqaan waa sidaan doonayay uwaba wax ugu wanaagsan ee dhici kara dharkii ayay ka bixisay biyihii ayay turi ku dhac markaasuu webigii ku qarqoomay oo galay intuu ku jirana dharkiisii ayay qaaday oo geed hoostii ku qarisay bisadii wax yar kadibna boqorkii iyo boqoradii iyo gabadhu u dhalay oo soconaya ayay u qeysho tagtay waxay tiri boqorkow iisoo gurmada wiilkii boqorka haya caraale waxa uu ku dhacay webigan oo liqay tuug ayaa ku tuurtay markaas boqorkii markiiba waxa uu amray inay ciidamadiisa badbaadiyaan wiilka yar ee ku dhacay biyaha way soo ordeen markaas ayay soo saareen intii gurmadka lagu jiray ayay ku tidhi boqor wiilka waxa helay tuug waa boqorka yare waxay ka xadeen dharkiisii wuxuuna ku tuurin webiga oo uu qaawan yahay intuu naxay ayuu yidhi ma boqorkii wanaagsanaa ee hadiyadda ii keeni jiray ayaa sida tan loo galay waa maxay nasiib darradan ku dhacday wuxuuna ku amray ciidamadiisii ilaalada u ahaa inay boqorka u keenaan dharkooda ku yaala guriga kuwooda ugu quruxda badan leh boqor caraale oo ku labisan dhar qurux badan muuqaal wanaagsanna leh ayaa boqorkii ilaalada u keentay markii uu soo taagayna waxa uu ku yidhi mahadsanid inta oo salaamay ma aqaan runtii saan kugu mahadnaqo saad naftayda u badbaadisay boqorkuna waxa uu ku yidhi waa caadi waxaas ayaa mudan bisadii ayaa isbartay boqor caraale iyo boqorkii kale ee u geyn jirtay hadiyadda markaas ayay tidhi anigu waxaan sii tegayaa boqortooyadii boqor caraale oo guriga ayaan idiisii hagaajinayaa waa se casuumantihiin oo maanta boqor caraale ayaa idin casuumay wiilkii yara aad ayuu u yaabay waxay bisadu uga jeedo balse waa u fahmayey inay qorshe leedahay wuxuu doontaba ha noqotee gabadhii boqorku dhalay ayaa jalleecadii u horreysayba ka heshay wiilkii waxay aragtay inuu yahay wiil qurux badan bisadina way sii socotay oo intay dariiqa maraysay waxay la kulantay dad beero qodataa qof kasta oo beerley u tagtana waxay ku tiraahdaa dhegeysta halkan waxaa soo socda boqorka weyn ee hebel markuu idahayaa dhulkan iyo beerahan leh waxaa ku tirahdaan waxaan u shaqaynaynaa oo beerahan leh boqor caraale sida haddaa ku odhan weydaan boqorku wuu idin laynaya qoortuu idinka jaraya dhammaan waxay gaadhsiisay warkii beeraleydii oo dhan waxayna ku tidhi boqorku markuu idin soo maro u sheega in dhulkan aad ka shaqaynaysaan uu boqor caraale leeyahay haddii kale wuu idin dilayaa dhammaantoodna markii boqorkii soo gaadhay waxay u wada sheegeen in dhulkan uu leeyahay boqor caraale boqorkuna aad ayuu ugu farxay wuxuu waa maxay wiilkan yar ee da'da yar leh ee boqortooyada iyo dhulka weyn haysta ee qanigii marba marka ka dambeysay ayuu sii farxayay bisadina waxay tagtay boqortooyo nin waalan oo saaxiri haysto oo buurdusheed ku taala albaabka ayuu ku garaacay ninkii saaxirka ahaa oo weyn ayaa ishortaagay wuxuu ku yidhi sidaad albaabkayga u soo garaacdaa bisadaadan yari maxaad iiga doonaysaa maxay tahay intay eegtay oo indhaha kor u qabtay ayay ku tidhi waxaan maqlay inaad tahay boqor cajiiba u balaaye ah waxaan maqlay waxaad noqon kartaa wax halaaliya waxaad jeceshay markaasuu wax kasta ayaa noqon karaa ee maxaad iga rabtaa adigu waxay ku tidhi hadday taasu dhab tahay oo runtii ay sidaa tahay miyaad noqon kartaa libaaxa oo aniga miyaad isaga kay dhigi kartaa libaax bas aan u arko inaad runtii libaax noqon karto oo waxaasu ay dhabkaa tahay basuu waxaasu waa shaqo caruurnimo maxay waxaasu ka dhigan tahay say ku tii samee bal haddaa oo iska dhig libaax hadday dhabkaa tahay markaasuu waan iska dhigi karaa waxaasu maha wax weyn oo aniga waqtigaga lumayo intuu iskala waaxay waxaa yidhi waxaaga isku rogay ayuu hal mar libaax weyn noqday bisadana intay baqatay ayay kor ugu booday leer dusha ka lulinayay markaasay tiri wallahi waa runtaa libaax baad noqon kartaa may hadda saadii kusoo noqo markaasuu sidiisa kusoo noqday haddana intii hoos matay alla waa runtaa oo waa libaax baad noqon kartaa waxaan ku dad libaax noqon karto miyaad xayawaan yarna iska dhigi kartaa sida tusaale bisad ama wax ka sii yar oo jiir oo kale jiir miyaad iska dhigi kartaa markaasuu jiira mana la jiir intuu qoslay buu sana jiir muxuu yahay waxaasu maxaan iskaga dhigi hadda libaax noqon kari waa ma jiirba noqon kari waaya sidii bal iska dhig jiir iska dhig suu qosal ku dhuftay markaas iyana qosalkiisi la argagaxday oo ay dabayshii ka soo baxaysay qaaday ee dib u riixday hal mar intuu sareeyey oo dhulku isku tuuray ayuu jiir iska dhigay bisadina waa siday doonaysay intuu ku soo booday ayay liqday gebigiisiba
way caloosha ku riday hawshiina halkaas ayay ku dhamaysay oo boqortooyadii saaxirku haystay waxay hadda u salaxday inay noqoto boqortooyo qasri weyn oo wiilka yar ee Caraale la wareegi karo way ka hortagtay boqorkii iyo Caraale markaasay ku tiri boqortooyadeeda sharfan waxaad maanta ku faraxsanahay in marti qaali ah tihiin oo ay la joogtaan wax walba waa idin dhameeyay albaabada guriga qasriga weyn ee boqor Caraale leeyina way idin furan ee soo gala gabadhii yareed ee boqorku dhalay oo ku taxajabtay dhulka weyn iyo boqortooyada oo Caraale leeyahay ayaa durbasheeda ka jeclaatay Caraale kuna faraxsan kulow ma ku guursan kara guriga ayay soo galeen waanay taxajabeen markay indhaha ku dhufteen qasriga iyo boqortooyada weyn ee Caraale leeyahay gabadhii dhashay waa boqoradii dhashay gabadha boqorada yar ayaa Caraale wadiis waxay ku tiri ma waxa tahay wiil reer leh markaasuu maya marwo anigu malihii xaas haddii aad ii ogolaan lahayd inaan inantaada guursado waxaan ku ballan qaadayaa inaan nolosheedu dhan ka farxin doono markaas ayay boqoradiina aad ugu faraxday waxaana lagu casumay boqortooyada Caraalena waxa uu guursaday gabadhii yareed ee boqorada ahayd boqorkii iyo boqoradii kalena way ku farxeen bisadina waxay ku tiri soo hadda ma aqoonid inaan ahay wax bisad ka badan aabbaha kuma dulmiyin ee dhaxal wanaagsan ayuu kaaga tagay aad iyo aad ayuu Caraale u farxay wuxuuna sidaa ku noqday boqor haysta boqorad tan iyo maantana caruuray haddaysan dhimanin waxay ku nool yihiin nolol rayn leh waxaad sheekadan ka barantay in wax kasta oo qadarku kugu soo hagaajo aanad markiiba sharaysan ee horta aad hubsato toddobaadka dambe intaad sheekatan oo kale ku maqli doonto barnaamijkeena dhalaan koriye oo toddobaadyadii soo xigay ku maqasheen sheeko boqortooyo ku saabsan iyo jacaylo waxaan toddobaadka dambe idin soo duubi doonaa dhalinyaroy sheekatan ka duwan tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo haddii sheekooyinka aad ka dhagaysato dhalaan koriye ku cajabiyeen waad subscribe baad saari kartaa oo waad sii gudbin kartaa sidoo kalena like ayaad saari kartaa fariimahaaga ku saabsan dareenkaaga ayaad sidoo kale comment ahaan noogu dhaafi kartaa tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tagaynaa caruuray nabadgelyo